بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملكم أبوه الرئيس أنتم كسلام يا مهمان شعبك الصومالية من يوا وجوده وحان نجعلها إنا سيو كريتو هل كان تعسيو بدرو مهمان dadkii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday kuwii u dhaawac ka soo gaaray dhibaatadii yaabka lahayd ee ka dhacday Soomaaliya waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu dib u fududeeyo waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu shacabka Soomaaliyeed guriyooda ka barakacay inuu nabad ku dhaliyo guriyooda ugu soo noqdaan waxaan jeclahay in shacabka Soomaaliyeed uu isgarabsado oo gacmaha isqabsado oo uu istaageero oo dhibaatada jira uu maanta iska kaashado hadii Ilaahay ka noqdo waxaan jeclahay inaan marka intaas kadib aan u gudbo barnaamijkii nabadda iyo heshiisiinta sida midnahay waxaan maalintii Axad ahayd 26 bishan 7 2009 aan shir ku qabanay magaalada London shirkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii looga bixi lahaa marxaladda murugsan ee shacbigeena ku jiro sidii nabad loo gaari lahaa iyo sidii mowqifad ummaddu ku heshiiso loo gaari lahaa dabcan waxa weeye waa wax aad u adag gelitaanka hawsha noocaas ah oo runtii u baahan xikmad badan hawl dheer marka waxaan anagu aanu ka jaaliyad ahaan ama ka dhalinyaro ahaan golaha dhalinyarada Soomaaliyeed aanu qaadanay inaan marka ugu horeyso shir sugu yeerno jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxgaradkiisii aqoonyahankiisii dhalinyaradiisii kadibna aanu bal guddi la tashi oo naga caawimo ama aan kala tashano sida barnaamijkan nabadda iyo heshiisiinta aanu u horumarin lahayn shirkii runtii waxaan ka helay fikrado fara badan dad wax ku ool ah oo talooyin wanaagsan loo soo jeediyay isla markaasna aanu guddi la tashi oo markaas aan maaragtay warbixintoodii iyo detailskoodii la harnay waxaan shir labaad ku qaban doonaa hadii Ilaahay ka noqdo magaalada Birmingham oo iyadana ay joogaan dad fara badan oo Soomaali ah sidoo kale ayaan gobolada Soomaalida ku nooshahay ee dalkan aan qaban doonaa Ilaahay idinkiisna waxaan shirweyne guud ugu yeeri doonaa mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool Yurub iyo Mareykanka sidaan ognahayna dabcan dalalka caalamku ee dhibaatada ku dhacdo waxa inta badan garab qabta ama wax ka bedela dadka qurba jooga ah oo haday dhaqaale tahay iyo haday ay fikrad iyo talo iyo xubin ay tahay marka waxaan go'aansanay bal inaanu qaadano talaabadii nagu habboonayd maadaama dalku uu ku jiro marxalad adag oo badan jahawareer siyaasadeed la galay oo ay maanta rag fara badan oo mujaahidiintii ka tirsanaa ay jaanib yihiin rag badan oo mujaahidiinta hadda ka tirsanna ay jaanib yihiin dagaal fara badan oo khasaar badan geysatay oo shacbi badan uu ku dhintay dad fara badan oo mujaahidiin ay ku shahiideen dad fara badan oo maxaa la yiraahdaa rayid ay dib ka soo gaaray runtii marka in marxaladaas wax laga bedelo oo bal uu la gaaro marxaladaas maanta hadii ay noqon lahayd in bal dawladdan hadda meesha ka jirta wax lala farsameeyo ama in bal dawladda ku xigta mid kale la soo dhiso oo bal xal laga gaaro inta ka horeysa sidii xabajoojin iyo nabadgelyo loo sameyn lahaa marka anagu ka kaalin ahaan waxaanu aad ugu rajaynaynaa oo aan ognahay dhibaatada dalkeena ku dhacaysa inay tahay dhibaato faragelin fara badan oo dibadda ka imaanaysa marka waxaa noo muuqatay inaanu kaashano saaxiibada dadka Soomaaliyeed ama wax la yiraahdo Somali friends oo ah dad iyagu ay bini'aadanimo ka tahay waxaan ugu rajaynaynaa inuu Ilaahay nuurkiisa u dhiibo oo Ilaahay diintiisa ugu deeqo oo Ilaahay soo islaamiyo runtii waa dad dadaal fara badan sameeya waxaa kamid ahaa ninkii odayga ahaa George Galloway la oran jiray waxaa kamid ahaa
kamid ah gabadhan Emira Woods la yiraahdo waa runtii dad Soomaalinimadu aad ugu weyn tahay oo macnaha dareemaya dadka Soomaaliyeed tacadiga iyo dhibka ay ku jiraan jecelna sidii dadkaas uu dhibka uga bixi lahaa aad baan runtii uga mahadcelinaynaa marka waxaan jecelnahay oo aan aad u xiiseynaynaa in dadka iyagu midooba gaar ahaan waxaan jeclahay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama shabaabka Soomaaliyeed aan ugu baaqo ama aan insha Allah halkan fariin uga diro walaalayaal waxaad moodaa dalku inuu leeyahay cadawyo aad u fara badan oo dhibaato fara badan ku haya una xeedeynaya sidii uu dalka ku dhibaateyn lahaa ummadda Soomaaliyeed dalkeedii badii sidaad ka warhaysaan niman warcadbadeed la yiraahdo baa maxaa la yiraahdaa in la rabaa in lagu qabsado oo balaayo dhan ay u timid oo kalluun iyo mid sun ku shubaya iyo jiniyo dhan ugu yimid dhulkiina waa la socotaan oo marxalad adag oo yaab leh baa maaragtay la rabaa in la geliyo marka bal inaynu inagu isu tanaasulno oo waliba aan bal maanta maalinba heer bay joogtaay aan bal inagu heshiino oo inaga wada hadalno oo aan danteena ayaheena sida aan uga tashan lahayn oo aan dalkeena diinteena ugu maamulan lahayn aan ka tashano oo aan la tashano dadka maanta maxaa la yiraahdaa iska soo horjeedaan oo iska soo horjeedaan siyaasadda xisbi islaamna waxaan jecel lahaa inaan iyagana aan yiraahdo walaalayaal maanta xal waa muhiim in la helaa marxaladan looga gudbo oo lagu dhaafo dhibaatadan iyo dhibka jira waa jiraan khaladaad fara badan oo jira waana idinku raacsanahay hal arrin oo ah shacbigani haddii la khasbo oo lagu khasbo waxaan raalli ka ahayn maanta berrito in loo keenayo dad aanan raalli ka ahayn oo Soomaali sheeganaya magac ahaan laakiin qalbi ahaan iyo dhaqan ahaanba aan nagu diin ahayn aan nagu dhaqan ahayn oo nagu mabaadi ahayn oo dalkeena lagu maamulo inay berri noo yimaadaan maanta qof aan naqaano aan hebel u naqaano oo shalay xukuumadda islaamiga ahaa marka taas waa dareemaya oo ummadda Soomaaliyeed way wada dareemaysaa laakiin haddana waxa loo baahan yahay bal marxaladda maanta lagu jiro mid looga gudbo intaas waxaan ugu gudbayaa xisbi islaam iyo shabaab waxaan jeclahay dhinacan dawladda ku meel gaarka ah inaan ugu baaqo xilliga meesha aad joogtaan oo la idin doortay waa 2 sano bisha hadda 7 baan la marayaa waxa haray waa sanad iyo bar intaad joogteen marka loo qaybiyo 2 meelood ama 3 loo qaybiyo barkeed waa tigi walaalayaal nin sidii dawladda Maxamed Siyaad Barre 21 sano meesha u joogaya ma jiro waxa way badbaado idinka leedin badbaadinayo oo leedinku badbaadinayo dadkii aad shalay isla jirteen in leedinka badbaadiyo iyaan dalka lagu qabsan badbaado 2 sano leedin badbaadiyo oo aad 2 sano inta joogtaan kadibna dad kaleeto oo reer galbeed iyo jinni ay kaleeto ay wataan yaan dalka lagu qabsan oo aanan anagu idinka idin eedin waayo haddii adduunku barto in nala khasbi karo oo awood inta nala ku khasbo waxaan raalli ka ayna loo keeni karo bari waxa dhici doonta midaas mid ka daran waxaan jeclahay in la midoobo oo la isu tanaasulo runtii dhibaatada shacbiga ku dhacaysa waxa way waa dhibaato runtii aan soo koobi karin oo maalinta ka dambaysa si soconaysa oo si maaragtay fogaanaysa marka waxaan jeclahay oo idinku baaqayaa in bal marxaladda anta la galo waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo xubno fara badan oo baarlamaanka ka tirsan oo aan siyaabo kala duwan ma xiriirnay iyagana waxaan leeyahay aad baad fikradiina ugu mahadsantihiin waana soo dhaweynaynaa barnaamijkan inaad taageertaan oo aad tala iyo aragtiba kusoo kordhisaan waxaan rajaynayaa oo arrintaas ay tusaysaa in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ku jiraan wali dad wax garanaya oo dareen leh oo dareenkoodu iyo aragtidoodu uu Soomaalinimadii islaamnimadii iyo
danihii ummadda Soomaaliyeed maaragtay ay ka muuqdaan marka aad baan taas uga mahadcelinayaa haddaan u soo noqdo qabanqaabada shirkan aan wadno shirkan waxaan jecelnahay inuu ka dhaco magaalada Leicester jaamacadda Leicester University oo shirkii hore uu maaragtay uu ka dhacay walow ay jiraan dadaalo fara badan oo kaleeto oo magaalada London in lagu qabto oo waliba gaar ahaan Hotel Ibis oo Elscourt ku yaala in maaragtay lagu qabto ay dhalinyaradu soo jeesay oo aan waliba maanta nimidoo aanu joogno marka doodaasi iyo iyadu laftigeedu go'aankeedu dib aanu ka gaari doonaa laakiin tala kale jirto iyaduna Hotel Ibis in lagu qabto barnaamijkan la soo jeediyay oo si maaragtay London maadaama magaalada ugu weyn ay tahay magaalada ugu dadka badan ay tahay marka balse waxa weeye labada dhinacba aad baan u qiimeyn doonaa marka shirkan ujeedkiisu wuxuu yahay inaanu Yurub iyo Mareykanka iskugu yeerno dadkii qurba jooga ahaa inaanu dhibaatada aanu qaybta ka nahay oo qof walba dhinaca uu raacay ama dhinaca uu taageeray inta laga soo wada baxo ninkii dawladda taageeray ninkii xisbi islaam taageeray ninkii al-shabaab taageeray dhibaato walba ama garab macnaha dhinac walba oo Soomaaliya ka maaragtay taageeray in inta la isu yimaado xal la gaaro waayo la kala adkaan maayo oo 20kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya way isdiriireysay qof toddobaad ku guuleysanayo oo xal ku keeni kara ama xal ku keenaya ma jiro waxa dhimanaya waa qof Soomaaliyeed intida burburaysa waa hanti qof rayid leeyahay oo aan bari loo dhisi doono cid u dhisaysa aan la garanaynin marka insha Allah waxaan jeclahay oo aan ku soo jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkayga in gacmaha la isqabsado in la walaaloobo in fogaanshaha la isfogeynayo laftigeeda ilaahay loo daayo oo murtad iyo khawaarij iyo erayadan la isticmaalaya laftigooda in maxaa la yiraahdaa aan bal ilaahay xukunkiisa u deyno oo kii murtad ah uu ilaahay la xisaabtamo kii khawaarij uu ilaahay la xisaabtamo laakiin aynu bal inagu midnimadeena iyo wadajirkeena ka shaqeyno oo aan ayaheena ka fikirno oo aan maxaa la yiraahdaa sidii ummad Soomaaliyeed oo jirto oo dalkeeda iyo dadkeeda u tashata u noqon lahayn waxaan idin leeyahay oo aan jeclahay inaan ugu dambeyntii iraado wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.